habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Cabdiraxmaan Bidhaan wararkana waxa ugu waaweyn hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Suudaan ayaa taageeray dibadbaxayaasha Al-Bashiirna ugu baaqay inuu iscasilo warbixin dheeraad ayaanu idinka haynaa wararka Suudaan wararka kalena waxaa ka mid ah shaqaalaha caafimaadka Pakistan ayaa naftooda halis u gelinaya iyagoo cudurka dabaysha ee dalkaasi la tacaalaya caawana waxaanu eegaynaa kalluumaysatada Soomaalida oo ka cabanaya kalluumaysatada shisheeyaha ee sharci darrada ah iyadoo imikana kuwa cusub shatiye la siiyay caawana waa caawadii tiknoolajiyada waxyaabaha idinku hayno waxaa ka mid ah roobotyo cunto ku keenaya iyo baarkinka gaadhiga oo qoyskaaga ilaalinaya kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka cadaadiska ayaa ku sii kordhaya madaxweynaha Suudaan Umar al-Bashir iyadoo ay socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo usbuucii lixaad maantana hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ayaa sidoo kale isaguna ku biiray dibadbaxayaasha iyagoo ugu baaqaya madaxweyne al-Bashir inuu iscasilo xaaladihii ugu dambeeyay dalka Suudaan waxaanu kala hadalnay Xaamid Murtada oo ah nin bulshada u dhaqdhaqaaqa People in Sudan, in all cities, towns and villages have been taking to the streets for over... dhammaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka ayaa u soo baxayay dariiqyada muddo 6 toddobaad ah ilaa ay hadda waxaa la galayaa bishii labaad banaanbaxyada joogtada ahi oo ay raadinayaan dadku isbeddel dowladeed iyo in madaxweynuhu iscasilo waxa ay ka mudaharaadayaan dhaqaalaha dumay cadaadiska qabyaaladda dhaqan-xumada takooridda iyo xaalado kale oo badan oo ay dowladdu ka dambayso ha yeeshee xaaladda dhaqaalaha haddii aynu eegno dhaqaalaha Suudaan xoog ayuu uga sii daray sannadihii ina soo dhaafay iyo gaar ahaan bilihii ugu dambeeyey ee uu ka sii darayay lacag kaash ah ma jirto waxaa yaraaday kaashkii iyo rootidii iyo shidaalkii dadkuna kaash ma heli karaan bannaanka mashiinada ay lacagta kala baxaan ma shaqaynayaan kii shaqaynayana saf dheer ayaa loogu jiraa kii ay lacag ku jirtana qofka waxaa loo ogol yahay 2,000 oo giniga Suudaan ah maalintii oo u dhiganta ilaa $35 taas oo aanan wax weyn dadka u ahayn kadib muddo dheer oo uu dalkan cunaqabatayn saarnaa hanaanka dhaqaalaha dalkan ama bangiyada maaha mid aad u horumarsan dadku waxay aad ugu tiirsan yihiin lacagta caddaanka ah haddii la waayana waa dhibaato weyn ayay ku tahay dadka dalkan degan taa waxaa sii dheer sicirka rootida oo 3 laab kor u kacay bil gudaheed iyadoo uu rootigu yahay cuntada daruuriga ah ee maalin walba laga isticmaalo marka arrimo culculus ayaa jira halkan qiimaha sarifka dollarka ayaa kor u sii kacaya maalin walba hadda $1 waxaa lagu sarifaa 56 giniga Suudaanta ah xaaladda sicir bararkuna waa ay ka sii daraysaa dalka Pakistan waxa usbuucan ka bilowday olole ballaaran oo caruurta lagu siinayo talaalka ka hortagga cudurka dabaysha xanuunkan wuxuu aad u saameeyaa caruurta da'doodu ka yar tahay 5 jirka wuxuuna sababi karaa in ilmahaasi uu curyaamo haddii aynu eegno dalka Pakistan iyo dalkaasi Afghanistan ayaa waxay meelo laga helo cudurkaasi dabaysha oo ku badan yahay qiyaastii 30 sano ugu dambeysay caalamka 350,000 oo caruur ah ayaa sanad kasta uu ku naafoobi jiray cudurkaasi 125 dal oo adduunka kamid ah laakiin waxaad moodaa imka in aad loo soo yareeyay oo lagu guuleystay in laga hortago 99% aad ayaa loo yareeyay 2018 caalamka oo dhan waxa laga soo wareeyo 29 kiis oo kaliya oo ku naafoobay talaalka waxa ka gacan ka geysta hay'adda la dagaalanka booliyada ama dabaysha haddii aynu eegno sanadkan mas'uuliyiinta Pakistan waxay filayaan in la cirib tiro faafidda cudurkaasi ololahan talaalka waxay rajeynayaan in la gaarsiiyo ilaa 30 milyan oo caruur ah Axmed Xaaji Xasan ayaa inooga waramaya wararka u dambeeyay waa 2 dhibic oo looga hortagi karo cudur aad u xun 260,000 oo ka mid ah shaqaalaha talaalka ee ka hortagga cudurka dabaysha ayaa guri u booqanaya Pakistan si ay caruurta u talaalaan bulaacadaha furan ee xaafada ka tirsan Peshawar waa bay oo laga heli karo caabuqan askar
ayaa wehelisa shaqaalaha tallaalka tobannaan ka mid ah shaqaalahan waxaa sannadihii ugu dambeeyey dila kooxo diidan tallaalka waxa ay tidhi sannadihii 2012 iyo 13 dad badan ayaa la dilay waxaanana looga digay haddaan sii wadno shaqadan inaan halis isgelinayno waan sii waday ayay tidhi nolol iyo geeri alle ayaa hayo hadda xaaladdu way fiican tahay पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन का ज़ाब्ता कानून warar been abuuraha ayaa laga faafiyey tallaalka kuwaas oo ah in reer galbeedku ay ku dhibaataynayaan carruurta muslimiinta wararkaasi ayaa baraha bulshada ku baahay sida muuqaalkan bulshooyinka qaarna weli waa ay diidan yihiin tallaalka dhowaanahan carruurtu way madax adag yihiin waxayna sheegeen in tallaalka uu sababay ayuu yidhi waxaannu weydiinay inuu og yahay halista cudurka dabaysha wuxuuna ku jawaabay waa dhibaatadeena haddii ay wax dhacaan annaga ayaana la tacaalayno horumarka ololahan iyo amni darrada baakistaan waxa ay micnaheedu tahay inay hoos u dhaceen kiisaska bolio marka loo eego sannadkii 2014 oo uu ahaa in ka badan 300 madaxa hay-adda caafimaadka adduunka wuxuu b b c da u sheegay in xaaladda afghanistan ay hadda ka sii darayso waxaa jira meelo aan la gaadhi karin in ka badan 800 oo kun oo carruur ah ayaan la siin tallaalka dhinacyada oo dhan sida taalibaan waa in laga qaybgeliyo si loo hubiyo inaan ilmo yarina tallaalka waayin dhanka bishaawar xaaladda cakiran waa in la xalliyo marka hore haddii ay tahay in carruurtan ay helaan nolol caafimaad leh laakiin waxaa la filayaa in ugu yaraan tallaalkan la dagaalanka cudurka dabeysha uu sii socdo bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta ururada u dooda xuquuqul insaanka ayaa sacuudi arabiya ugu baaqay inay ogolaadaan in la soo booqdo dadka xidhan oo ay ka mid yihiin bay yidhahdeen kuwa arrimaha haweenka u dhaqdhaqaaqa iyo qaar ka soo horjeeda musuqmaasuqa hay-adda amnesty ayaa sheegtay inay diiwaan geliyeen 10 kiis oo dadka la jidhgelay isla markaana lagu gafay xuquuqdooda britain iyo faransiiska ayaa isku raacay inay wadajir uga hortagaan soo galootiga tahriibta ku maraya biyo mareenka english channelka iyagoo doonyo yar saaran tallaabooyinka qaadaya waxaa ka mid ah sirdoonko la wadaago isla markaana dhulka iyo baddaba laga raafo magafayaasha hogaamiyaha mucaaradka venezuela ayaa sheegay inuu ka fikirayo inuu cafiyo madaxweyne nicolas maduro haddii uu ogolaado buu yidhi inuu xukunka iska soo wareejiyo dalkana dimuqraadiyad ku celiyo juan guaido ayaa iskii madaxweynenimo isugu caleema saaray laakiin maduro waxaa weli taageersan militariga ururka la baxay dowladda islaamiga ayaa mar haystay khilaafad ballaadhan waxa ayna hadda ku kooban yihiin dhul yar oo ku yaala waqooyiga suuriya ciidamada dimuqraadiga suuriya ee maraykanku ay taageeraan ayaa halkaasi meelo dheeraada ka qabsaday laakiin markii maraykanku uu ku dhawaaqay inuu suuriya ka baxayo ayaa dagaalyahanada kurdiyiinta waxaa soo food saaray culays badan cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa faahfaahinaya sida ciidan kasta xoogaga dimuqraadiga ee suuriya waxay doonayaan inay baabi'iyaan kooxda isku magacowday dowladda islaamka kooxdan meel ayaa la iska dhigay marka la eego awoodda cirka ee qarniga 21aadna awooddoodii way sii dhammaanaysaa waxaannu joognaa tuulada soose ee koonfurta ku taalla runtiina waa furintii halkani xoogaga isku magacaabay dowladda islaamku waxay qayba ka haysteen laga bilaabo liibiya ilaa ciraaq iyo weliba suuriya laakiin halkan yar ayay isugu soo urureen 30 kilomitir oo keliya koonfurta wixii naga xigana 2 tuulo oo keliya ayay haystaan maraykanku dhowaan ayuu taageerada ka joojinaya kooxda la dagaalamaysa burburkan ayaa muujinaya jabinta xoogagii daacish maraykanku waxa uu maalmihii u dambeeyey kor u qaaday duqaynta cirka waxay baabi'iyeen meelihii ay daacish awoodda ku lahayd laakiin dad badani waxay aaminsan yihiin inay weli meelahaasi joogaan marar badan ayaannu jebinay daacish waa koox diiniyan xag jir ah mabda'ooduna waa halkii dagaalyahanadu waxay isku dayayaan in ay kaashadaan shacabka waxaa loo joogaa suuriya ciraaq iyo adduunka oo dhan daacish waxay isku qarinaysaa hadhka iyo saxaraha galbeedka halkan weli lama kala quusan iyada oo ay dhacayaan weeraro cirka ah waxaannu raacnay howlgal habeennimo oo lagu gelayo goobaha ugu dambeeya ee ay daacish haysato
waxaa jirta geesinimo iyo baqdin labadaba. Dagaalyahanadani waa rag iyo wiilal ka yimid tuulooyinka iyo magaalooyinka nagu dhow. si taxadir leh ayay u socdaan. ilaa 2,000 oo dagaalyahanada Daacish ah ayaa weli hadhay. waxaa ku jira ugu yaraan 20 Ingiriis ah oo xag jir ah. qaraxyadooda lagu sameeyay guryaha iyo jiifkooda oo ay dhabarka u saaran istusnimo ayaa ka muuqata. yar ayay cagaf-cagafyada ciidamadu wadada sii banaynayaan, laakiin si degdeg ah ayay ciidda u galeen oo caawa meella uma socdaan. suuriya waxa ay noqotay dal ay joogto ka tahay aasaska iyo baroordiiqu. qoyska Daariq Khaalid baroordiiq ayay isugu yimaadeen. toddobaadkii hore ayaa aagga hore lagu dilay. kurdiyiinta iyo carab ayaa dagaalkan kula jira Daacish, kumanaan ayaana kaga dhintay. ka hor inta aanay guusha imanna qaar kale oo badan ayaa ka dhiman doona. Daacish waxa ay ku dhowdahay in la jabiyey. ciidamada reer galbeedku dhowaan ayay baxayaan. raggan iyo wiilashani keligood ayay noqon doonaan. natiijadu waxay noqon kartaa guul qaaliya. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. weli waxa inoo soo socda caawa waxaanu eegaynaa kalluumaysatada Soomaalida oo ka cabanaya kalluumaysatada shisheeyaha ee sharci darrada ah, iyadoo imikana qaar cusub shatiye la siiyey. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka. ballan idin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn Suudaan ayaa taageeray dibadbaxayaasha dalkaasi Al-Bashiirna ugu baaqay inuu iscasilo. shaqaalaha caafimaadka ee Pakistan ayaa naftooda halis u gelinaya iyagoo cudurka dabaysha ee dalkaasi la tacaalaya. boqolaal kalluumaysato Soomaali ah ayaa ku tiirsan badaha dalka, kuwaasi oo ka soo saarta nolol maalmeedkooda. qaar ka midihii waxay hadda sheegayaan inay saamaysayba kalluumaysiga sharci darrada ah. haddii aynu eegno dhowaan ayaa ay ahayd markii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya bilowday bixinta shatiyada kalluumaysi ee la siinayo sharikado caalami ah. sharikadaha Shiinaha ayaa la siiyey oo iyadu ka kalluumaysan doonta halkaasi ama ka jilaaban doonta nooca loo yaqaano tuunaha. wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo khayraadka badda Cabdilaahi Bidhaan Warsame ayaa isagu sheegay inay bixinta shatiyada ay tahay wejigii koowaad, isla markaana ay doonayaan in lagu helo dhaqaale Soomaaliya ay kaga kaaftoonto kaalmada caalamiga ah ama kaalmada shisheeye. khayraadka badda haddaba iyo kalluumaysatada Soomaaliya iyagu sheegay inayna haysan qalab iyagu ay maraakiibtaasi kula tartamaan shatiyada la siiyay shisheeye, taasina ay dhibaato ku keenayso. arrintan ayaa haddaba waxaa eegay wariyaha BBC-da Qaali Baaruud oo warbixintan ka diyaariyey. xeebta Liida oogta Waabari waxaa tuban ganacsato iyo dilaaliin dhowraya doomihii kalluunka. Cabdiraxmaan Cali waxa uu xal oo dhan ka kalluumaysanayay bad kacsan. haddana waxa uu tartan ugu jiraa sidii uu uga mid noqon lahaa kuwa ugu horeeya ee suuq u hela wixii ay soo jilaabteen. ma badna kalluunka uu soo dabtay. kayd la'aan awgeed waa inuu degdeg u iibiyo wixii uu xalay u dhaxay. gorgortan yar kadib baxreedkan waxaa laga siistay $28. sanuuradiina waxa uu ku wareejiyey halkiiba $10. faa'iidadu way yar tahay waayo cabdi waxaa la shaqeeya 8 qof, waxaana shidaal kaga baxa qiyaastii $80 safar walba. balse dhibka hawsha waxa uu weheliya kalluumaysiga sharci darrada ah. kalluumaysiga sharci darrada ah caqabad aad iyo aad u weyn buu nagu hayaa. wax naga dhahaya ama aan uga dacwoono ama aan kala xiriirnana ma hayno. siday u socdaan noogama aabayeelaan, wayna dardaraan, qalabkii naga guraan. waxa way sheegeen haddii adiga aan xataa mararka qaar ay qalabka naga qaataan u tagna xataa
way nahandadaan oo waxa weeye rahoob baa saaran annaga ma humaysinin dad waxaan iskana masaakiino oo iska xamaalataa ma humaysinin annaga marka laga yimaado dhibka uu kalluumaysiga sharci darrada ah ku hayo kalluumaysatada gobolka banaadir taa waxaa u dheer in tayada qalabka ay ku hawlgalaan uu aad u liito sidoo kale inay meesha ka maqan yihiin kaabayaasha asaasiga u ah kalluumaysiga sida aad aragtaan waxay marin la wadaagaan maraakiibta ku soo xidhanaysa dekedda muqdisho halkanna waxaa in yar inoo jira xeebta soomaaliya ugu mashquulka badan ee liido dowladda soomaaliya waxay dhowaan shatiya siisay 30 markab oo laga leeyahay shiinaha kalluumaysatada ayaa aaminsan in maraakiibtani ay yihiin culays kale oo ku soo kordhay waxa aad dib ugu qabnaa maraakiibtaas kalluumaysiga oo nagula soo daray walwalka qabnaa qalabkii annagoo qalab aan haysanin tayada xaggeeda aan isku mid ka ahayn qalabka hadda ahaasano aad dib noogu yar waa qalab laga tegey oo 73 markii la dhisay ururka kalluumaysiga Soomaaliya markii kuul aasay qalabkii aan ku shaqeyn jirnay ilaa hadda aan ku shaqeynaa dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa sheegaysa inay la dagaalamayso kalluumaysiga sharci darrada ah balse ay ruqsadahan bixiyeen baaritaan dheer kadib shirkaduhuna ay yihiin kuwa lagu kalsoon yahay maraakiibtan markaan siinayno iskama siino waa soo baadhnaa baaritaan baa lagu soo sameeyaa report baa laga soo qoraa 5 sano u dhameeyay ama 10 sano u dhameeyay markabkaas waxa uu sameeyay recordkiisa waxa uu yahay waxaa marka horeba lagu siiyaa shatiga aaminaad la aaminay inaanu baad credit ahayn in uu yahay markab si sharciya u kalluumaysta caymis sharciya ku jira baa markaas la siiyaa sharciga markaa ka bacdina waa lagu korjoogtaya waa lagu ilaaliyaa fariinta wasiirku ma aha mid si degdeg ah u qancinaysa kalluumaysatadan oo muddo dheer ay kor saarnaayeen dhibaatooyin kala duwan si kastaba ha ahaatee cabdi iyo asxaabtiisu habeen qura kama maarmaan inay badda ka maqnaadaan qoysas badan ayay ka masruufaan sidaa daraaddeed waxay u bareerayaan khatarta badda iyo kalluumaysiga sharci darrada ah qaalib xasan baaruud BBC muqdisho haddaynu caawi ciyaaraha hore ugu soconnana tartanka wareegga afraad ee koobka FA-da ayaa caawa loo ballansan yahay iyadoo ciyaarta ugu culusna ay Arsenal ku bartigelinayso Manchester United dhanka kalena Chelsea ayaa ku soo baxday finalka EPL iyadoo la ciyaari doonta Manchester City Tottenham ayaa Chelsea ku soo jiiday xalay 4-2 markii rigooreyaal loo dhigay kooxda Monaco ayaa shaqadii ka eriday tababarahoodii Thierry Henry kadib 20 ciyaarood oo xilka hayay kooxdan oo qaaday horyaalka Faransiiska 2017 ayaaba imka safka xagga dambe kaga jirta caawana waa caawadii tiknoolajiyada waxyaabahan idin hayno waxaa kamid ah robotyo cunto ku keenaya iyo kuwa baabuurta ku xafidaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Tiraad ayaa noo soo jeedinaya gegada dayuuradaha ee gaatwiga ee magaalada London ayaa waxa ay ku dhawaaqeen tijaabo ay doonayaan robot in uu gawaadhi meel geyn karo ama parking ku samayn karo taasoo bilaabmaysa xagaaga soo socda waxa uu leeyahay 2 af oo uu gaadhiga ku qaadi karo oo uu meel dhigi karo isagoo isticmaalaya habka internetka ee GPS ee casriga ee militariga ay isticmaalaan si uu gaadhiga meel u dhigo 3 meelood marka laga soo qaado meel ahaan ayay ka badanaysaa parkingkii ama gawaadhidii caadiga loo dhigay in la aqoonsado wejigaaga adoo isticmaalaya online ayaa lagu baari karaa daayeerada yaryar ee la xado waa mid caadiyan lagu isticmaalo saaxiibada goobaha bulshada rayidka oo hadda eegi karta wejiga daayeerka yar haddii xayawaan meelo laga soo dhoofiyo waa la aqoonsan karaa maamuladana digniin bay heli karaan si loo helo ciddii ka dambaysay 24 robot oo iswada ayaa lagu sii daayey fagaaraha jaamacad ku taalla waddanka Mareykanka iyaga oo markaa dhiibaya pizza ama bun ay rabaan ardayda Virginia mid kasta oo ka mid ah 25 robot yaryar waxay isticmaalayaan app computer oo wax ka dalban karaan dukaanada kambaniga tan wata Starship waxa uu khabiir ku yahay horumarinta gaadiidka iswada ee cunnada dhiiba Sony waxa ay shaaca ka qaadeen robot yar leeg oo
oo ay ku magacaabeen aibo waxa uu wataa kamera iyo maskaxu ku shaqeeyo waxa uu ilaalin karaa qoyska carruurta iyo xataa xayawaanka ay leeyihiin hase yeeshee farsamadii u dambaysay ma aha mid jaban eyga keliya ee robotkaihi waxa uu ku kacayaa $3,000 in malabka laga gurto duurku waxay ka mid tahay dhaqamada qadiimka ah ee miyiga Nepal waana hawl khatarteeda leh ragga malabaysanaya ayay tahay inay jarar ka lushaan buuro dhaadheer ku yaala koox BBC-da ayaa u socdaashay degmada Lamyong ee Nepal si ay u ogaato sababta ay dad badan oo tuuladaasi ku nool ay naftooda halis ugu gelinayaan malabka deegaanka Mibra waxa la gaadhay waqtigii la malabaysan lahaa dabeetana tuulada oo dhan ayaa diyaar garow ku jirta waxaana la isticmaalayaa salaankan laga sameeyay dhirta Binder Goreng iyo Delbader ayaa iyagu waxay yihiin ragga badheedhay ee malabaysiga doonaya shinnida ku malabaysa kaymaha ayaannu jiilal badan ka shaqaysan jirnay waa khayraadkayagii isla markaana tuulada oo dhan ayaa malab ka soo aruursata halkaas halkan waxa weeyaan meel malabka laga gurto del iyo min ayaa haddaba iyagu dhirta koraya si ay halkaasi godadka malabka uga soo saaraan haddii aanu jirin rabitaan dhab ah ma samayn kartid markaan hoos u soo dego waan cabsadaa laakiin markaan halkan hoose gaaro wax walbaa waan ilaabaa qiiqa ayaa caawinaya si uu shinnida u jeediyo laakiinse kuma filla inuu shinnida oo dhan jeediyo sidaas daraaddeed waxa ay tahay haddii aad tahay nin malabaysiga raba inaad u adkaysato qaniyada shinnida qalabkaannu isticmaalno qalab casriya maaha sidaa daraaddeed ma haysanno waxaan isaga ilaalinno qaniyada shinnida marka ay diyaargaroobaan nimankaas malabka guranaya waxa weeyaan dabeetana in aad halkaasi ku dhacdo goobtii shinnida oo aad dabeetana malabka halkaasi ka soo qaadato sannadkiiba 2 jeer ayaa kaymaha laga malabaystaa ku yaalla hawdka waxaanay noqotay in halkaasi dad dalxiisayaashii ay uba soo daawasho tagaan sida malabkaasi loo guranayo बाहर का आदमी आएगा लाख के ऊपर भी दे सकता है कोई dalxiisayaasha ajaaniibta ayaa $400 ilaa $800 na siiyaa maalinta ayna soo raacaan lacagtaasi horumarka tuulada ayaana u isticmaalnaa waxaana halkaasi ka soo gala weliba dadka deegaanka kharash lacagta maanta la helay ayaa ah bay leeyihiin mid loo isticmaali doono sidii loogu dhisi lahaa waddo xusuusnow wararkii ugu dambeeyey ee BBC-da Soomaaliga waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caawiya caalamka waa ku mahadsantiin dhammaantiin daawashadiinna intaaynu dib u kulmayno isniinta waxaanu idin leenahay dhammaantayo bahda telefishinka Soomaalida waa mahadsantiin